بسم الله marka hore magacaygu waa Cabdulcasiis Xuseen Cabdi recently waxaan wax ka dhigaa jaamacadaha dalka oo dhan accounting ko in afkeena ku oran karno waa xisaabaadka xisaabaadkaas oo inta badan ganacsiyada wadanka ka jira ay u baahan yihiin xisaabaadku wuxuu hoos yimaadaa oo kamid yahay business administration ama waxa la yiraahdo Department of Business Administration marka waxa kamid ah business administration marketing Department of Accounting and Economics marka bal maanta inagu waxaan gaar ahaan weegi doonaa qaybta accounting ama qaybta xisaabaadka waxaan oran karnaa waa wax maanta loo baahan yahay ama waxaan oran karnaa waxay kaga duwan tahay qaybahan kale waa skills oo ardaygu marka hore uu imanaya jaamacadaha wuxuu galaa waxa la yiraahdo business administration dabeeto marka uu galo business administration-ka waxay ku kaliftaa wuxuu dheeryahay xiise oo inta badan dadkeenu waxaad moodaa inay ku fiican yihiin xaga calculation-isko waa dadka jaamacad kasta oo tagto inay qaybtaasi ay powerful tahay waxaan oran karnaa marka every business maanta Somaliland ka jira wuxuu u baahan yahay xisaabaad iyo inuu ogaado in businesskiisu profitable yahay waxaan oran karnaa accounting waxa weeye marka hore waxay yiraahdaan waa identifying recording classifying summarizing and reporting company waxa inta looga socdaa marka hore waxa jira wax la yiraahdo transaction kaas oo aynu leenahay waxaan u baahanahay inaynu ogaano transaction kan inuu kii saxda yahay iyo inuu kii qaldan yahay oo qof baa ku sheegi kara transaction buga waxaan uga socdaa statement qaldan buu ku siin karaa oo voucher-kii saxda ahayn marka qofku waxa marka hore loo baahan yahay inuu identify gareeyo oo kala saaro oo inaad wax walba sii deysa maahe inaad ogaan karto transaction kan ma kii saxda ahaa mise waa kii qaldan markaas waxaan sameeynaa waxa la recording oo aan diiwaan gelinaynaa transaction-ka wuxuu nooga baahan marka classifying wax la yiraahdo oo aynu kala saarno accounts-ka qaybihii uu lahaa markaa wali baahidiisa ama inaynu ku fargareyno intii aynu u baahnayn wali lama gaadhin laga yaabaa inaynu soo saarnay ilaa 5,000 oo accountant ama 5,000 oo qof khibrad u leeyahay accounting-ka 5,000 qof marka lagu apply gareeyo hadii la yiraahdo every business Somaliland ka jira qof accountant u baahan yahay waxaan oran karaa still wali lama gaadhin ama maynaan gaadhin intii loo baahnaa laakiin still waxa suuqa buuxinaya ama marketkii waxa ku jira oo meeshii position-kii qofkani qaban lahaa haya qof aan aqoonteedii khibradii lahayn marka waxaan leenahay still baahidi way jirtaa markaan u nimaadno dhinaca cidda dhigan karta waxa dhigan kara oo ay applicable u tahay arday secondary school ka soo baxay oo shuruudaha ay jaamacaduhu leeyihiin ama markii horeba waxa ardayga loo soo dhigay wax la yiraahdo maxay 2 sano oo business-ka wuxuu ku soo arkay wax la yiraahdo introduction to business oo ay ku jiraan management-kii iyo ay ku jiraan accounting-kii iyo economics-kiiba ama waxaan la yiraahdo administration-kuba marka ardaygiyo 2 sano soo qaatay oo secondary school ka soo baxay ayaa wuxuu imanaya jaamacaddii dabeeto ardaygaasi ayaa baynu u baahanahay oo bilaabi kara maxay accounting ujeedooyinka inta badan inagu kalifaaya in kuliyadan ay timaadaan hadii aynu garan weyno in business-keenu faa'iideeyo khasaarayo waa dhibaato oo still aynu dhaqano sidii juhaladii ama dadka deemka for example ganacsiga dadkan dan yartaa oo soo kala dhan business-koodu iska socda marka waxaan u baahanahay inaynu ka baxno fikirkii ahaa inuu business-kaagu iska socdo laakiin waa inaad garan kartaa habeen kasta iyo maalin kasta wixii aad faa'iideyso taasina waxa ku kalifaysa ama aad ku garan kartaa qofka ku jooga inuu accounting aqoon u leeyahay
waxaan odhan karnaa fursadaha shaqo ee maanta bannaan qofku haddii uu si fiican u barto accountingka waayo waxa laga yaabaa iminka markay jaamacaddii ay galaaskii soo fadhiisto ilaa 40 arday meelahaas oo kale waxa laga yaabaa inay soo baxaan ugu yaraan ama ardayda ku fiicnaata ee inta badan ku wanaagsanaata ilaa 20 arday noqdaan definitely waxaan qabaa ardayda ku fiicnaata ama si wanaagsan u qaadata inay ka soo baxaan oo markaaba la qaato oo nin kasta oo maanta ganacsadii wuxuu u baahan yahay inuu iska dhiso xagga finance oo maanta waxa la ogaaday caqabadaha iyo problemska haysta businesski waa la aasaasaya waa la dhisaya later on waxa dhacaya maxay in businesski uu ku dhaco maxay nin kasta oo ku dhaco waxaan la yiraahdo maxay liquidation ama wind up oo businesski oo kaco waxaana taa keenaya inta badan waxa xun ama qaldan qaab xisaabeedkiisa oo waxaanu garanayn inuu faa'iidayo iyo inuu khasaarayo toona waxyaalaha imika inta badan aynu odhan karno qofku markuu dhameeyo degree-ga ama uu dhameeyo waxa la yiraahdaa accounting and finance first degree-ga wuxuu sameyn karaa takhasusad badan waxa jirta imika for example oo kale ardaygu markuu secondary school ka soo dhameysto wuxuu apply gareyn karaa oo toos u dhigan karaa waxa la yiraahdaa CA ama chartered accountant oo toos u gali karaa laakiin maxaa laga rabaa ardaygaas inuu u go'o maxay inuu fiilkiisa uga soo baxo oo inta badan waxay yiraahdaan ardaygu hadduu 95% ka horeeyo waa failure or dismiss bay ku sameeyaan waxa kale uu sameyn karaa certification iskan la yiraahdo CPA oo kale ACC ee kale qofkii marka waxa loo baahan yahay kaliya maxay inuu secondary school ama basicskiisu oo dhisan yahay markaynu eegayno master certification iska la eegayo wuxuu qaadan karaa ardaygu waxa la yiraahdo MBA accounting and finance waxa kale uu qaadan karaa waxa la yiraahdo oo imika asoran karto dunida way ku soo korodhay waxa la oran jiray MFAM ama waxa la yiraahdo Master of Financial Analysis and Management oo inta badan waxay u badan tahay waxa la yiraahdo financial analysis oo waxaan u baahanahay inaan forecasting sameeyno marka qofku jaanisyo badan oo uu ku sameyn karo master degree ayaa uu leeyahay waxa jiri kartaa master of MCOM waxa la yiraahdo in master of commerce ay leeyihiin oo inta badan waxa ku kala duwan oraahdi ama eray bixintii ayaa ay wadamada ku kala duwan yihiin dhammaan ardayda imika ka qalin jabisay secondary schoolada dalka oo dhan waxaad haysataa chances ama opportunities ka badan ardayda ama economics ka ahaato ama management ka ahaato ama ardayda kale social science dhiganaysa ha noqotee ka fara badan oo waxaad garan kartaa business kasta oo Somaliland ku yaala in uu u baahan yahay xisaabiye waxaad garan kartaa hay'ad kasta oo ku taala Somaliland inay u baahan tahay xisaabiye waxaad garan kartaa hay'adaha dawliga oo dhan ama xafiisyadaha dawliga oo dhan inay u baahan yihiin xisaabiye marka waxaan ku oran lahaa waqtigaaga ama chanceska haddii aad ku fiican tahay calculationska waxa ku fiican inaad ku soo biirto kuliyada accountingka oo aad barato oo aad waqtigaaga iskaga lumin oo aad kolba intaad mid gasho aanad mid kale ka wareegin